barnaamijkeena dhacdooyinka xubinta koowaad waxaynu ku soo qaadanaynaa nin traffic ah oo hawshiisa baabuur hagida ku sameeya isagoo qoobka ciyaar ku jira nin ka mid ah ciidamada laanta ammaanka wadooyinka booliiska ee waddankaasi Philippines ayaa soo jiitay indhaha dadka waddankaasi dadka dalxiisayaasha iyo weliba saxaafadda ka gadaal markii uu la soo baxay arrin aad u qosol badan oo ah in uu gawaarida faraha badan ee gooshaysa wadada oo ilaalada ka hayo uu ku kala hagayo isagoo muusig ciyaaraya amaba niikinaya ninkan oo lagu magacaabo Ramiro ayaa noqday nin soo jiitay dad aad u fara badan oo had iyo gooraale agdooban wadooyinka Edessa Street iyo Macabella Street ee uu ka shaqeynayay ku yaala magaalada Manila ee caasimadda waddanka Philippines. Ramiro waa 54 sano jir waxa uu ka sheekeeyay sida hawshan qosolka badan uu la soo baxay wuxuu yiri somebody to be happy while some of them are waiting the traffic. That's why I try to be happy somebody waiting. Hawshan waxaan jeclahay in aan sii wato inta nolosheeda ka dhiman kaliya uma arko inaan shaqadeeda ku xafidanayo laakiin waxaan kaloo u leeyahay inaan dadka wadooyinka goynaya iyo wadayaasha gawaarida aan farxad geliyo filimaanta ninkan isagoo muusig ama qoobka ciyaar ku jira oo laga baahiyay qaar ka mid ah telefishinada caalamka waxaan la soo sheegin ilaa iyo hadda wax shil ah oo ay galeen wadayaasha gawaarida oo aad uga hela qoobka ciyaarkiisa ninkaasi oo sameeyo Ramiro muddo 6 sano ah ayuu ka mid ahaa ciidamada booliiska gaar ahaan laamaha ammaanka xubinta saddexaad ee barnaamijkana waxaynu ku eegi doonaa dagaal dhex maray mas iyo saangur way fududahay in masaska cobra uu si fudud ku dilo qofka bini aadamka muddo ka yar 30 ilbiriqsi ayaa la oran karaa masku waxa uu ku dili karaa qofka bini aadamka cobruhu inta badan waa uu xasaasi waxaana uu yahay mid dareen badan waxaa la sheegaa in uu yahay bahal degan laakiin haddii ay timaado xaalad dagaal xaajada faraha ayay ka baxaysaa wuxuu noqonayaa dagaalyahan bal haddaba sheekadan aynu yara daawana ku saabsan dagaalkani oo aakhirkii keeni doona in maskii la dilo maska iyo saangurtu waxay isku jirsanayaan in aad u yar iyadoo inta badanna halkaasi uu ka dhacayo in si sir ah la isku fara saaro bal hadda aynu daawano sheekadaasi The process is very specific. You have to measure candle. xubinta kale ee barnaamijkana waxaynu ku eeg 24 sano jir nin ah oo haddana 7 sentimitir ah oo loo caleemo saaray ninka dunida ku gaaban Eduardo Nin Hernandez waxa uu nooc kasta kala mid yahay nin 24 sano jir ah oo u dhashay waddanka Colombia
wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro muusig waxa uu ku haminayaa inuu yeesho baabuur waliba nooca Mercedes-ka waxaan la noonahay hooyaday aabahay iyo walaalahay dhammaantayaduna waxaan jecelnahay ku jiifka bijaamada habeenkii Hernandez miisaankiisu waa 22 kiilo waxa dhir ahaan uu leeyahay boorsada yar ee gacanta lagu qaato ee cabin carry luggage loo yaqaan dhirkiisuna waa 70 cm oo kaliya ninkay hooyadiis lagu magacaabo Niamey Hernandez waxay sheegtay in wiilkeeda Nino aanu korin tan iyo 2 sano markuu jiray isagoo ilaa iyo haatan oo 24 sano uu jiro aanu u muuqan nin da'daasi jira Nina wuxuu darajadan ugu gaabanaha adduunka kala wareegay Hibambig oo u dhashay wadanka Shiinaha kaasoo dhirkiisu u ahaa 4 cm oo kaliya kaasi oo geeriyooday 13 bishii March ee sanadkan Kandara Tevamagar oo u dhashay wadanka Nepal oo bishii October ee sanadkan 18 jir noqon doona isla markaasna dhirkiisu u dhan yahay 56 cm Nina wuxuu ku dhashay degmo ku taal koonfurta Bogota ee caasimadda wadanka Colombia waxa waalidkiis ay sheegeen inaanu helin wax daaweyna iyadoo hooyadiis ay sheegtay in dhaqaatiirtu aanay u sharaxin sababta Nina u noqday nin aad u gaaban hooyadiis waxay sheegtay in wax daaweyna aan la siin waxay kale sheegtay in Hernandez oo 43 sano jir ah in Nina markii uu dhashay miisaankiisu u ahaa 1.5 kilogram waxaana dhirkiisu u ahaa 38 cm inkastoo Nina uu yahay ninkaasi aadka u gaaban haddana hiwaayada iyo hamiga adduun ma ahan mid ka maqan wuxuu sheegay inuu leeyahay gabar saaxiib ay yihiin oo lagu magacaabo Fanny taasi oo 18 sano jir ah iyadoo dhirkeedu yahay 1.5 mitir waxaana markaas ninkaas uu sheegay inuu aad u jecel yahay muusikada Hada